الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا walaalayaal, ilaahay baa mahadoo dhan u sugnaatay. Waxaynu ku jirnaa mu'tamarkii 17aad ee uu soo qabanqaabin jiray markaska Tawfiiq Islamic Center ku yaala waddanka Norway magaaladiisa Oslo. waxaynu geli doonaa haddii alla idmo muxaadaradii labaad ee maanta. muxaadaradaas oo ciwaankeedu uu yahay sidee ayaad hogaamiye ku noqon kartaa. waxaan ku soo dhaweynayaa oo inoo soo jeedin doona Sheikh Isxaaq Axmed Cali. falyatafadal mashkuuran maajuuran biidni illaah. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال موضوعني wuxuu khuseeyaa macnaha dhinacyo badan ayuu khuseeyaa. kayfa takunu qaa'idan, sideed ku noqon kartaa hogaamiye. kaliya tama khuseeyo cid rabto in ay madaxtinimo iyo raadiso oo ay noqoto madaxweyne ma khuseyso. waxay khuseysaa waalidka ay khuseysaa. waxay khuseysaa dadka raba hadda in ay aasaasaan, mesela dhalinyarada oo kale doonaya hadda inay aasaasaan guryo iyo reero inay aasaasaan doonaya ayay khuseysaa muxaadarada. dadka raba inay hogaamiyaan oo hogaamiyayaal ay noqdaan ayay khuseysaa muxaadarada. muxaadaradani iyo kayfa takunu qaa'idan waxaa laga qoray kutub badan ayaa la qoray oo macnaha ku saabsan sideed ku noqon kartaa hogaamiye. annaga laakiin waxaan eegaynaa biidni illaah موضوعني من خلال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. محايا الله سبحانه وتعالى وحي يراد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبي رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحيدن كوسغان دياشا وناكسن. waxa adduunka dhan uu isku raacsan yahay walaalayaal, kuwada gaalada iyo muslimiinta dhammaan adduunkana inuuna soo marin معنا قفكه قامين وناكسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم قائد معناها الدنيا أنت أجر تردم بصومري والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مركا هدي أن راد إنه النبي صلى الله عليه وسلم قابك وحكوه قامي هو قامين الرسول صلى الله عليه وسلم. قفكي مركا كودا إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو قامين النبي كودا إذا وحنا نقولنا يا قائد ناجح بنقولنا يا hogaamiye oo macnaha naajaxay hogaamintiisa ayuu noqonayaa. marka waxaan fiirinaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabkii uu macnaha ku hogaamiyay. marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qaa'id mahbuub ayuu ahaa. haddii si kale aan u dhigo walaalayaal, nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kasbaday dadkii uu hogaaminayay saxaabadiisii kalgacaylkooda iyo jacaylkooda ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam kasbaday. waana arrinka marka looga baahan yahay qof walba oo doonaya in uu noqdo hogaamiye in uu noqdo. ruuxii raba inuu qaa'id noqdo waa in uu ku sifoobo sifadaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku sifaysnaa oo dadka uu hogaaminayo, dadka uu raba inuu taladooda u qabto, kalgacaylkooda iyo xubbigooda waa in uu ku guulaysto weeyaan. rasuulka sallallahu alayhi wasallam hogaamintii macnaha iyo kalgacaylkii uu kasbaday saxaabadiisii dadkii uu hogaaminayay muunan ku kasbanin cunfi iyo dagaal, muunan ku kasbanin nabiga sallallahu alayhi wasallam. madaxda adduunka jirta ee maanta khaasatan kuwa muslimiinta
waxaa jirta cunfi iyo dagaal iyo qaabo badan ayay ku hogaamiyaan ama dadkii ay ku muquuniyaan si hogaankooda loo dhageysto laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam hogaamintiisii rasuulka sallallahu alayhi wasallam wax cunfi iyo dagaal marna nabiga sallallahu alayhi wasallam muuna sameeynin wuxuu ictimaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam ala alhub kalgacayl iyo jacayl ayuu abuuray markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabkaasuu ku hogaamiyay saxaabadiisna markaa waxay noqdeen qofka ay ugu jecel yihiin ayuu noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa sugnaaday walaalayaal xadiiskii Umar radiyallahu anhu wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi nabiga allah adiga ayaan wax walba ka jecelahay waxaan ka ahayn macnaha naftayda sidaas ayuu leeyahay Umar radiyallahu anhu rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik nabiga oo la jeclaadana mar labaad waxaan niri nabiga sallallahu alayhi wasallam hab dhaqankiisii ayuu ku kasbaday oo ku hogaamiyay inay jeclaadaan saxaabadiisa iyo dadkii uu hogaaminayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam laakiin hadana mar labaad nabiga oo la jeclaado waa min shuruut al-iimaan iimaanka shuruutiisa ayay kamid tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylkiisa Umar markuu yiri radiyallahu anhu rasuulka ilaahayo anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi wax walba adiga ayaan ka jecelahay waxana naftayda ka ahayn markuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilayka min nafsik macnaha iimaan ama shuruuti iimaanka maadan kamilin ilaa oo hatta naftaada aad iga jeclaatid markaasuu Umar wuxuu yiraahday nabi ilaahayo فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي حتى نفتي ذا أيان كاجعلها برسول صلى الله عليه وسلم عمر وحلويرة الآن يا عمر وهدى أياد معناها إيمانك شروطي سعد هالشيء مركا نبي صلى الله عليه وسلم ولا ليال وحا معناها وقبصة لو بهي إن أفهمه روح دونايا إن ومعناها أمده قاميو وإن أرادي مركا قابك النبي صلى الله عليه وسلم وكوكس بضي صحابتي سجعل كودا القائد المحبوب أيها رسولك صلى الله عليه وسلم وحيالها عدينا إنا مرلمات أما النصوص دي أدلة عدينا يسو النبي صلى الله عليه وسلم حبي كيسة يجعل كيسة إن أها من شروط الإيمان لا يؤمن أحدكم حديث صحيحين النبي وحير صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن والده وولده والناس أجمعين أحد كينو إيمان طب إلا مهلين أما شروط إيمان كما كملين حتى أكون أحب إليه إلى أن كان وقفك أو معناها كجعلي هاي والدك إيا ولدك إيا ضدك أردن دمان تودا مركز سلاس آية واحد هاي أساسك قفك الربا إنه هجاميا نقضه أساسك للربا إنه معناها السماء واحد هاي أن يحب أتباعه أولا أتباع دي إيا ضدك asaga uu hogaaminayo waa inuu asaga jeclaado una abuuro qaabkii ay ku jeclaan lahaayeen dadkaasi qaabkii ay ku jeclaan nabiga sallallahu alayhi wasallam ma ahayn qaababkii marka uu ku abuuray jaceelka ma ahayn qofka kan ruuxka kan nabiga ma ahayn sallallahu alayhi wasallam qof qalqalafan muuna ahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa arhamun nas bin nas dadka oo dhan qofka ugu naxariista badan dadka ayuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidaas buu ku kasbaday كالجعيل كأصحاب تيسا وأكثرهم حبا لهم نبي صلى الله عليه وسلم وحها قفك أو معناها الدلال بدن كد دلال بدن جعيل كأصحاب تيسا إلهنا سبحانه وتعالى وحصادري رحمة للعالمين عالم كنتن وحوها نبي صلى الله عليه وسلم نحريس أيوها مرلبات رسولك صلى الله عليه وسلم معناها وحو حتى كد دلال ذلك قال هذا يكفارته وكد دلال النبي صلى الله عليه وسلم si ay ilaahay u rumeeyaan oo ay naarta uga badbaadaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha uu ku kasbaday walaalayaal lana rabo qofka hogaamiyaha in uu macnaha kasbado dadkiisa jaceelkooda rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha uu ku kasbaday marka waxa kamid ah kalgaceelka asxaabtiisa wuxuu ka fikiri jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ama uu macnaha fiirin jiray qof walba ihtimaamkiisa iyo waxa muhiimada uu saarayo waxa dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam ciyaalka iyo ilmaha yariiska markuu la kulmay wuxuu ku yiraahday ya aba umayr maada fa'ala nuqayr
macnaha shimbirkiisa yaraa oo uu ku ciyaarayay ayuu weydiiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam macnaha waa nas cadaynaya nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka oo dhan in uu ihtimaam u siin jiray qofka hogaamiyaha ee dadka uu hogaaminayo ihtimaam siiyane waa jeclaanaya dadkaasi in ay ku daba faylaan ayaa iimaanaysa وكان يجلس مع الجميع dadka dhan buu la fariisan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam cid uu iska weynaysiin jiray ama uu iska kibrin jiray ma jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam qof walbana waa musaafixiin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam غني هذا ama فقير هذا nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu qof salaamo ila ruuxa gacantiisa u jiito muuna ka bixin jiray gacantiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam waana waxay uu ku kasbaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam dadkii uu hogaaminayay jacaylkooda uu ku kasbaday weeyaan marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu kasbaday qaabkaas uu ku kasbaday dadkii uu hogaaminayay jacaylkooda ruuxii raba marka walaalayaal in uu hogaamiyo noqdo oo wax hogaamiyo waxa muhiim ah marka in uu kasbado dadka uu hogaaminayay jacaylkooda في صحيح البخاري وحسوا أروي حديثك والنبي صلى الله عليه وسلم معناه لقبل عائشة رضي الله عنها وحيت راضي سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النبي عائشة وحال ويدي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو قريجي سجوجه معناه وحي أسمين جري محيه معناه هو أرين كلو عدهين النبي صلى الله عليه وسلم معناها التعامل كيسة ونكسنا مع الأهل كيسة يا حاسس كيسة ولا تعامل جري ayuu ku kasbaday nabiga sallallahu alayhi wasallam kalgacaylka iyo jacaylka dadka dhanba Aisha waxa la weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameyn jiray gurigiisa markuu joogo kaana fi mihnati ahlihi bitr ahlkiisa reerkiisa u shaqeyn jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam fadha hadarat as-salah qama ila as-salah salaada markay imaatana salaadu aadi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa dhici jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam adoomada Madiina kamid ay dadkii joogay in ay nabiga gooni oo la baxdo ونا راعي جري النبي صلى الله عليه وسلم وحود دغيسن جري waxa ay rabto in ay macnaha u sheegto ayuu dhageysan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wa akhlaaq wanaagsan iqaab wanaagsan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku kasbaday jacaylka dadkii uu hogaaminayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha kale oo nabiga uu ku kasbaday waxa kamid ah wuxuu booqan jiray dadka kaana yaati ducafa dadka ducafada ayuu u tagi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam waana booqan jiray kooda xanuunsan ayuu booqan jiray wuxuu xaadiri jiray janaazooyinkooda ayuu tagi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna dhihi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam inna allaha awha ilayya an tawaadu ilaahi wuxuu ii waxyooday inaad isku tawaaducdaan oo isku dabicsanataan hatta la yafkhar ahadun ala ahadin ila qofna qof kale unan macnaha oga faantamin wala yabqa ahadun ala ahadin qofna qof kale unan ku xad gudbin marka qaanuunka sida marka aad arkaysaan dawladda nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu hogaamiyay wuxuu ahaa al-hub kalgacayl buu ahaa iyo jacayl ayuu nabiga ku hogaamiyay sallallahu alayhi wasallam ila saxaabada ay macnaha nin walba jacaylkii nabiga uu muujiyay walaalayaal qof walba wuxuu u maleyn jiray in uu asaga dadka ugu jecel yahay buu u maleyn jiray culimada waxay leeyihiin su'aasha nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam oo lagu yiri nabiga man ahabbu an-nasi ilayk adiga dadka yaad u jeceshahay ayaa nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam waxay leeyihiin culimada su'aashaasi waxay ka imaatay ama ruuxa su'aasha weydiiyay wuxuu u maleynaa inuu asaga dadka ugu jecel yahay buu u maleynaa ila uu weydiiyay si uu u hubsado yaad dadka ugu jeceshahay nabi ilaahayo markaasuu nabiga wuxuu yiri Aisha radiyallahu anha xaaskiisa Aisha ayuu nabiga dadka ugu jeclaa sallallahu alayhi wasallam hadana wuxuu weydiiyay يا معناها كحجة عائشة أبوها عائشة أبهت أو أبو بكر رضي الله عنه أيام تذكر أوجع لها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وسكجوا جي مركب وحي لين مركب علماء السؤال شو وحى كان وحويان قفل بوا هبدقنك والنبي يقابك أو لا دقم جري وحي أم لينا يا رسولك إنه أصدق تذكر أوجع لها أي أم لينا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر لنا وحي الله جعل خيرك أي الله جعله وحنا آد أوقع بسنة إن أي معناها النار أي آذان أو يهلك سمان صدرت يد الله سبحانه وتعالى وحلي فلعلك باخع نفسك يعني وحلقيها بالنفط هذا إن الدش شيء أما هذا هلاكتي معناها عبسدا آد معناها أوقع بسنة يصير إن أي هلاك سمان أو أي نار تجلان مركا حبك يجع كالجعيلك وحو النقضي النبي صلى الله عليه وسلم سيرد مركا لجأه فن من فنون القيادة وفن أو فنون تهجامنته كمد أيها النبي صلى الله عليه وسلم وحا وإيمان جري نينك دلنيرada ee doonaya in uu sameeyo jariima ama in uu dambi galo
doonaya u imaanaya wuxuu noqonayaa asaga oo magaranaysa wixii oo dhan ee qalbigiisa ku jiray uu ka baxay oo xubbi iyo kalgacayl uu qalbigiisa buuxsamay ayuu noqonayaa dhimrinta nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dadka u dhimrinaya waad ogtihiin nabiga in uu imaaday nin saxaabada kamid ah markaas wuxuu nabiga ka codsaday inuu u fasaxo zino wal iyad billah wuxuu yiri nabi allah waxaan doonayaa inaad zinada ii fasaxdid nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabku oo la tacaamulay miyuu cunfiyay qaabka kan miyuu oo la dhaqmay abadan wuxuu weydiiyay qaab oo macnaha degan oo macnaha ay naxariis ku jirto ayuu ninkii oo la hadlay nin dhalinyaro ahaa wuxuu ku yiraahday oo weydiiyay miyaad jeceshahay ehelkaada iyo dadkaada in lagu sameeyo ma yiri markii dadka dhan uu tiriyay macnaha asaga xaaskiisa walaashi waxa dhan markuu tiriyay oo yiri aniga waxaas faaxishada lama jeceli ayuu nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dadka dhan waa sidaas gabdhaha dhan waxay la dhasheen dad bay la dhasheen rag baa dhalay marka wuxuu yiraahday nin walbana ma rabo in walaashi ama gabadhiisa macnaha faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo laakiin haddii uu nabiga ku boodi lahaa oo uu dhihi lahaa war waxaad masaajidka la imaatay maxay tahay bal ka warrama marka wuu u duceeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo oo macnaha isbeddelay oo qalbigiisana macnaha uu galay jacaylkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu halka ka noqday ninka asaga ahaa waxaa dhici jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu u imaado ninka reer baadiyaha oo qalqalafnaan iyo adayg badan uu ku jiro ayaa u imaan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka uu nabiga oo la dhaqmay ninkaasi wuxuu noqon jiray asagoo dhahaya aslimu war soo islaama faqad ji'tukum min 'indi khayri an-nas waxaan idin kaga imid ninkii dadka ugu khayrka badnaa agtiisa ayaan ka imid ayuu dhihi jiray waa macnaha habdhaqanka wanaagsanaa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka hogaamiyaha noqonaya waxa la rabo marka qaabkaas inuu oo la dhaqmo ka bilaaw adiga reerkaada awlaadaada iyo ciyaalkaada ka bilaaw hadii macnaha cunfi aad noqotid qof oo qalqalafnaan iyo adayg dadka oo la dhaqmo hadii aad noqotid waxaad hogaamin karin cidaadaan hogaamin karin qoyskaada yariiska ma hogaamin kartid hadii laakiin siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo hab hogaamintii nabiga aad macnaha daraasaysid oo aad qaadatid oo kalgacaylkii nabiga sallallahu alayhi wasallam aad muujidid wax walba marka hogaamin kartaa dadka dhanna waxa weyn inay kugu soo dawafaylaan oo ay qaataan hogaamintaada ay noqonaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis baa wuxuu yiri khiyaru a'immatikum a'immadina ama madaxdiinu waxa ugu akhyaarsan alladina tuhibbunahum kuwa aad jeceshihiin wa yuhibbunakum idinkana idan jecel wa yusalluna alaykum idin ducaynayaan wa tusalluna alayhim idinkana aad macnaha u ducaynaysaan kuwaasi ayaa ugu akhyaarsan a'immadina iyo madaxdiina ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta walaalayaal wax badan baa la qoray oo laga qoray macnaha sifaatul qaa'id an-naajih waxa la yiraahdo hogaamiyaha naajix ee sifaadka uu yeelan karo wax badan baa laga qoray waxa la qoray macnaha in uu noqdo qof aqli badan az-zakaa ruuxa wax hogaaminayo waa inuu noqdo qof aqli badan waa inuu noqdo waxa kale oo macnaha la qoray qof kalsooni macnaha ay naftiisa aad isku kalsoon waa inuu noqdo qof geesi waa inuu noqdo intaas oo dhanba nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa ku sifaysnaa sidaasuna nabiga wuxuu ku macnaha mutaysay oo ku noqday qof ay qiraan ummadaha adduunka oo dhanba inuuna soo mareynin adduunyadani qof la mid ah hogaamintiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam shijaac buu ahaa geesi buu ahaa nabiga maalmaha kamid ah magaalada Madiina waxa dhacday in la maqlay sawt iyo cod baa la maqlay oo dadkii cabsi galiyay markii dadkii dhan ay guryahooda ka soo baxeen waxa ka hor imaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam oo faraskiisa saaran oo dadkii kule lam turaacu waraha argagixina ama ha cabsanina asagoo kule buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hor imaaday asagana oo degdegid badnaa dadkii oo dhan iyo wixii ay ka cabsanayeen taasi markaa waxa weeyaan walaalayaal waxyaalaha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku kasbaday kalgacaylka asxaabtiisa waxaana niri ninka hogaamiyaha noqonaya ama raba inuu hogaamiyo wax waa in uu noqdo qof kasban kara dadka uu hogaaminayo jacaylkooda waxa kale oo macnaha aan u gudbaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qof cafwi badan oo dadka cafiya oo nasaamaxo ayuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waana sifa looga baahan yahay qofka hogaamiyaha ah man yuriidu an yakuna qaa'idan ruuxa raba in uu noqdo qaa'id sifada la raba inuu ku sifoobo waxa kamid ah al-afw wal musaamaha qof dadka cafiyo waxna saamaxo waa inaad noqotid
رسولك صلى الله عليه وسلم صفات كيسي أي مركا كميدة كان قائدا متسامحا قائد أو وحوءها متسامح النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المسيئين وعفن جري النبي صلى الله عليه وسلم ضدك معناها حمية واسكع عفن جري بل وحور رادين جري أعذار يعذر دار بقول رادين جري النبي صلى الله عليه وسلم لكن سيف تمنه كل بود جرين هدي ضدك معنا حد قدب سماية ومعناها الولب بوده أما عيدا أمر الوسي اللي رهال الله يو وماشي والوكلة تجا يا مركزي لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضدك وعفن جري روح مركا الربائين ونقض قائد ناجحنا وحال الربائين وصفاتها سمركا وقاطع يا لدونيا وحيالها عضينا يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه أها قائد متسامح إنه أها وها معروف ولا ليال نبكي أي أجهزتين غير مكة النبي صلى الله عليه وسلم نبي مكة يكبحي وحين أحب المدينة إليه ما شاء وأوجع عليها بيئه مركي أوبحي وكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم مل أما مجالا أنكو قد درسان لها دون كان مجرد ما شاء أوجع على هاي بعطها هذا أنا لقى كابحين إن مكة بحين محو النبي أوجبحي مركها مكة ونبكي لو جيستي أي ضد كيسي قوم كيسي أي أجهزتين أنت همين أنا أوجهرين أنت هسعود دجال بوحي كسو قاد المدينة دجال كبدر أو نبي أوجلي ما هن معناها إن مكة تجي النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيجا وحي إمادين المدينة إمادين دجال كي أحد أيد عيسى سكلا أيجا إمادي أو كسو دولي مكة كسو دولي أو النبي صلى الله عليه وسلم ضد كيسي كسو دولي ما حد عي مركه سنة كتابنا تاريخ النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معروف مركي مكة وقالي أسقوا مركاسي قوة بدن وتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيدا طبعا كن جاري أيو كدوا لي أسقوا وتما يلا مكة مالين تاسي عيدا كان النبي قوتي تبارك إلى هايين أي قوة إلى هايين ما قال هذا إذا كجواد ما عكت وامرين كريم النبي صلى الله عليه وسلم لكن رسولك صلى الله عليه وسلم محسن مركي للسوحر يضد بدن oo ay kamid yihiin kuwa asaga dib badan u geystay maxay macnaha filayeen in uu nabiga sallallahu alayhi wasallam oo laayi doonay ay filayeen laakiin muxuu yiri idhabu fa antum tulaqa iska taga macnaha dad xor ayatiin iska tagu nabiga sallallahu alayhi wasallam cid uu ka argoostay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadka haasi reer maka oo dhibi jirtay macnaha ma jirin rasuulka sallallahu alayhi wasallam ila afraad muayyan oo aad u yara qaarkoodna ah dad intay soo islaameen islaamkii iyo macaankiisa dhadhamiya hadana noqday oo dib badan geystay ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu amar ku bixiyay in talaabo laga qaado laakiin dadkii uu soo xareeyay markuu weydiiyay maxaad u malaynaysan inaad idinku sameeynaaya maanta su'aasha waxa keenay dib badan ay geysteen laakiin afigi iyo musaamaxada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday idhabu fa antum tulaqa iska taga ayuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam القائد مركا وحال الربا إنه صفة سي أوقات أو نقد قائد متسامح وإنه نقد ويان وحكم إذا قصوين كسوعر ورأي أو تصنع النبي صلى الله عليه وسلم تسامح عيسي قصة الأعرابي ننكر رباديها النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تدقال بي آدم مركا لسوق الدومي ما لا يلا هرصدي النبي جيت قوني أيو قلي أو هرسنا سيفتي سنة وحوي سرتي ماش جيت كأيو سرتي نن أي صور دونتي كلي النبي وحكوا كبرارجي وحي ونن سيفت الله بحي ودول تاجن يعني أيو كبرارجي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابنا لما جوجان وحو يدي يا إيجا كعلنا يا وحو يرى النبي صلى الله عليه وسلم الله إلهي يا إيجا كعطي سيفتي أيو قاطي وحال يرى أديك حتى يا إيجا كعلنا يا مركب وحو يرى قف إيجا كعلنا يا ملاهم قف معنا السيف هذا كي أو خير كبرنا بس النقو النبي صلى الله عليه وسلم نكي وحو ويدي إنه إسلام أو الدين تأو قادنا ودي ذي وحير الإسلام كما قادنا لكن بالله وحنا سمينا يوم دجال يعيد كل دجال لما يسود دم عن صور راعين النبي محو كسميه وحبا وسكسامحين كسجها ونتجي وتسامح النبي صلى الله عليه وسلم وحو النبي وقاب تسامح وناق عفين وكل رقم جري ذاتك قال هذا حتى المسلمين تأهين وحكم ذا درس كيسي يهودي أها واحد بعضين علماء الشيخ يعني نكاسي يهودي النبي صلى الله عليه وسلم هبينك مركو ساعدو بحيتانك الصبح أو بحايو جدك وكب حيا أيو حيال بدن أو النبي قد بقى يسوي جري قادورات بيرادين قشن أيو جدك أودي جري وعب النبي مونو كسر من جرين صلى الله عليه وسلم قشن كاسنا ومعنا ساق مري جري محيطها مركع عجيب كوجر قصة أنا نكبا حنون صدي
wuxuu waayay nabiga sallallahu alayhi wasallam subaxii dambe markuu soo kacay macnaha dhibkii jidka u yaali jiray ayuu waayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dareemay inay wax isbedeleen oo dhib u jiro wuxuu aaday nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii gurigiisa ayuu aaday wuxuu weydiiyey aaway ninkii wuna xanuunsanaa arrinkii ninkii yahuudiga ahaa wuxuu ku noqday arrin la yaab leh ayuu ku noqday nabiga dhibkiisa ayuu ka shaqaynayay laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga wuxuu kula tacaamulay at-tasaamuh ila macnaha ninkii asaga ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam tawxiidka iyo islaamka uu u bandhigay oo uu soo islaamay islaamnimada ninka in uu qaato marka maxaa keenay qaa'idkan cadiimka ee tasaamuxa macnaha dadkii kula dhaqmay macal gaaladii kula dhaqmay tasaamuxaasi ayuu qaadan kari waayay ninkii yahuudiga ahaa ilaa markaasi uu macnaha islaamkii uu qaatay waxyaalaha tusinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ama adillada tusinaysa in uu ahaa qaa'id mutasaamix waxa kamid ah qisatu Haatib ibn Abi Balta'a haddii qisadiisa macaayirta maanta wadamada iyo ay macnaha ku tacaamulaan haddii loo bandhigo wuxuu ku sifaysmayaa ninka la yiraahdo Haatib ibn Abi Balta'a al-khiyaanatu al-udma waxa la yiraahdo khiyaanatu al-udma ayuu macnaha sifada halkaas u galaya maxaa yeelay asraarta nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu gudbiyay oo Quraysh oo nabiga dagaal uu kala dhaxeeyay ayuu wuxuu u gudbiyay asraarta rasuulka sallallahu alayhi wasallam arrinka asaga waa fashilmay gabadhii loo dhiibay warqadii la rabay in Quraysh loo geeyo oo ayna ku qorneed bacdu asraari rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo ciidankiisa iyo dawladdiisa wala soo qabtay arrinkana waxaa sameeyay warqadii qoray طبعا waxaa jiray ducfi baa jiray Haatib ibn Abi Balta'a muunan ahayn reer Makka أهل يضد يقربان وجوجين مكة وحو كفكر يا أسجع إنه معناها قريش والنبي عدو كوها طبعا إنه جعان وجهزته سيدت كيسا وعفيان أو أين معناها أونلاين أيو كفكري قاب كاسون أوجد بيه حاطب ابن أبي بلتعة لكن نبي مركي الله هرك هناي أو نقرتي النبي صلى الله عليه وسلم ميو سمي مركا إنه يرق حاطب معناها قرتها لجرة أو هالدي لما بل الصحابة مركي أوجادين waxay bandhigeen oo nabiga u soo bandhigeen inuu fasax siiyo si ay macna ninkan u dilaan nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga wuxuu xigay dhinaca cafinta iyo tasaamuxa wuxuu ku yiri laakiin saxaabadii sida Umar ibn Abi al-Khattab radiyallahu anhu wuxuu ku yiraaday ninkani wuxuu xaadiray Badr maxaana ku ogeysiyay dadkii Badr xaadiray inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu macnaha ku yiri wax alla waxa doontaan sameeya waanaan idin dambi dhaafay marka waa qissa ajiiba oo macnaha kacad in nabiga asraartiisa la gudbiyay al-khiyaanatu al-udma waxa la yiraahdo maanta lama cafiyo macnaha hadii la gudbiyo dawladaha asraartooda ruuxi gudbiyay macnaha lama cafiyo waxay ku haystaan hadda nin waxa jiray American inuu yahan u malaynayo oo London safaarad wadamada Latin America macnaha wadan kamid ah safaaradooda qaxooti ku ahaa maalin dhow baa laga soo saaray America waxay leeyihiin ninka hanoo la soo dhiibo kali waxay ku haystaan macnaha asraar oo macnaha ay lahaayeen wax kamid ah ayuu gudbiyay oo dadka iyo caalamka u bandhigay safaaradaasna wuxuu u galay intaas waa khiyaanatu al-udma macnaha waxyaalaha shuruucda caalamka u yaala ruuxii ku dhaqmo in oo macnaha ama xabsi dheer oo gala ama la dilo weeyaan laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam waa cafiyay marka cafintaasi marka walaalayaal tasaamuxa qofka wuxuu marka ku hananayaa shacabka uu rabay dadka uu rabay inuu hogaamiyo ayuu ku kasbanaya hadii dib marka aad u eegtid معناه مدحدا أدونك مثلاً وحن سوق قاضنا نينكي مانديلا لا ديجري ساوث أفريقيا نينكاسي دبك لوجي استواد وجدين أما تاريخ دواد آخردين وحو حرنا صدّن سنة وح كله أيضا وحرنا ما ننتي للسوداء أو ساوث أفريقيا ودن كلي رادنا تلاذ وقفتي هدي وكل دقائق لها أرجوسي هدو كل دقائق لها وضدكي إن أو معناها كأرجوس اللي بيجري عدانكي يضدك ماشي جوجي دبك أوجيسي صدّن سنة عمري سا واحد كل دور إلى 20 سنة معنا حبسي قليي ما حد لها وحنا نقول لها إن عالم كذا منبوذ أو أنا نرجع لهم بنقول لها لكن مركو قاتي صفة العفو والمسامحة مركو قاتي وضدكي سنة وكوه جاميي إن أيضاك عفيان مذوقي محيلا إيجا تلاذ قبتي مانتا عدانكي ودنك واجوجان وردك عفية أو ردك وحبها ودي منها عالم كذا معنا ولو قال لنا أيها منافقين أيهين حقيقة أو الكيل بمكيالين أي كل رقمان نن معناها عالم كيدك لا يقدم مدحت المسلمين تقاربا أو كمية أمد المسلمين تبابيي
ayaga agtooda waxay ka yihiin dad wanaagsan bay ka yihiin laakiin ninkaas oo kale maadaama ay dhici karto dad ayaga dadkoodii inuu macnaha waxba uu ku sameeynin caalamka dhan waa la bambuuniyay waana la soo dhaweeyay waxa la siiyay macnaha price badan ayaa la siiyay oo ninka asaga macnaha lagu soo dhaweeyay qaa'id oo cadiim ayuu noqday laakiin qisadaasi iyo macnaha maxallu shaahidka waxa weeyaan ruuxa macnaha cafwinta iyo tasaamuxa wuxuu ku kasbanayaa ummadiisa iyo ummadaha kalena waa ku kasban karaa marka ruuxii raba inuu hogaamiye noqdo waa inuu sifadaasi uu qaato mar labaad hakada takunu qaa'idan waxyaalaha kale walaalayaal nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku sifoobay waxa kamid ah ta'liif alqulub qulubti dadkii uu hogaaminaya ayuu isku soo dumay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa macruuf carabti joogtay madiina nabiga uu imaaday al-ansar awsi khazraj dagaal oo sanado badan ama quruun qaatay ayaa ka dhaxiyay oo ay dagaalamayeen yahuudi madiina degneedna waa ka shaqaysay dagaalkooda laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu imaaday muxuu sameeyay inuu dadkaasi walaaleeyo ayuu ka bilaabay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa dagaalkii iyo dhibaatada ay isku hayeen muddo badan nabadgeliyo iyo wanaag macnaha nabiga uu ugu bedelay sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo kamid walaalayntii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu macnaha walaalaya al-muhajirin wal ansar mu'akhiintaas hadana mar labaad ayadana waxay tusinaysaa hogaamintii nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka marka qaa'id ka raba in uu noqdo waxa marka looga baahan yahay in uu ku sifoobo sifadaasi oo aad noqotid qof macnaha dadka iyo shacabka uu raba in uu hogaamiyo dadka hogaankooda uu qabanayo macnaha wax allaal wixii xarguf oo ka dhaxayso dadka dhibaatooyin ka dhaxaya nin dadka isku soo keeni karo oo dadka jamcin karo oo khilaafaadka oo dhan saari karo waa inuu noqdo nabiga wuxuu dhihi jiray la tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana war ha isku caroonina oo ha is xasdina adoomada ilaahay waxaad noqotaan dad walaal ee noqda والذي بيده نفسه لا تدخلوا الجنة الله نفتيدا يقعنتي زكو جرتان ku dhaartay jannada ma galeysaan hatta tu'minu ila ilaahay aad ka rumaysaan wala tu'minu ilaahina ma rumaynaysaan oo iimaan dhab ma lidin ka helaayo hatta tahabu ila iska jeclaataan ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum ma idan tusiya وحدي أسميسان أدرس جعلانيسان أفشوا السلام بينكم ورئيس السلامة أو سلامة إسكر ردية أو سلامة إسكر قاعدة سلامة أو إسكر ردية وحكينيسا الحب كالقعيل بي أبو ريسا مركها نبيك وحكدا قال لم يجري ذلك إن إسكو دبر الدبان إن أي إسحاس دان وحو نبيك كشقينا إن ذلك دان أي شعبك وهو قامنا أصحاب تيسا إن أي نقدان داد ولا عليه الله نفتي إذا كنتي سيكون جرتان كودارت الجنة إلهنا مجلسان إلى أسك معناها إلهي كرميسان أو إيمان كامل أو رب اللي ذن كهلو إيمان كامل أنا مالي ذين أو مالي ذن كهلايو إلى أسك جعلاتان وحوتسي وحيا أسك جعلان لهايا سلامته أو لسكر دي أو لفافيو أو معناها قفك أو سلام الروح كهر ماضي وحي كميته مركا وحيالها ولا ليال كالقعيل كأبو رايو نبي قاب كاسر مركا أو أبو ري ضدك وهو جامنا إن إسجعلادان أو أسجنا أي أجعلادين صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كأ وقفك كلام مسلم كولالكي ما ظلميو من هوجيو عدونا قعنته ومجليو كل المسلم على المسلم حرام مسلم كستا مسلم ككله وحو حرام معنا شرفتيسا يعرضيسا يا حرام كحوليه سين ودعنا وحرام يديجي سين وداديو النبي صلى الله عليه وسلم وحديه على أخبركم بأفضل من درجات الصيام وحكفض بدن صونك درجتيسا هي صلاة هي صدقة وحكفض بدن ما إذا تصيام وحيده الصحابة بلا نبي وحو إرادة إصلاح ذات البين dadka dhaxdooda oo la islaaxiyo oo kalgacayl iyo macnaha wanaag la dhigo oo xurgufta iyo khilaafaadka la saaro waxay kamid tahay wax macnaha ka fadhi badan oo ka macnaha ajr badan darajaatu siyaami iyo salaadi iyo cibaadaadkaas ay leeyahay fa inna fasad albay ذات البين dadka dhaxdooda oo fasaad uu dhaco iyo khilaafaad uu dhaco hiya alxaaliqa bu nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri ma dhahayo tinta ay xiirta ee qofka waxay xiiraysaa diintiisii ay dhaawac geysanaysaa wuxuu kaloo nabiga dhihi jiray waxa idin soo dusay oo idin soo dhuuntay ummadihii hore cudurkooda muxuu ahaa alxasad walbagda xasad iyo caro iyo macna khilaafaadka waa ummadihii hore walaalayaal qofka qaa'idka ee ama hogaamiyaha wuxuu hogaamiye ku noqon karaa inuu noqdo qof go'aan leh alhazm fi al-umur nabiga markaa sifadaas ayuu ku sifaysnaa sidaasuna nabigeena wuxuu ku noqday acdamu qaa'idin روحي قاطع النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاب هجامنتيسنا والنجاحية وحكم إذا وحيلها مركنا تصينا يا رسولك صلى الله عليه وسلم قام مديسي وحجر مسجد الضرار
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله مساجد كاسي منافقين يضبك شقي إن أي لسان مدينة لكن مساجد إله عبادة صلى الله يسمون أهين وحال الله لسي إن أمدي مسلمين النبي جوه جامنا لو كلا جيو أو خلافات ملء جبات كتلكتان منافقين تا أي الله وطلع إن أو نقض مساجد كا نبي جوان أو حقاتي مساجد كأسرها أمر وكبحين لول كلا دقو لول كان الله دقي وحزمي يجوان أذيك وين نبي يقولها وحالها كلا أو تصنع وحكمده جوانك طبعا وكقاتي يهود بني قريظة وكقاتي وكمده وحكلا أو تصنع يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مر لبعض iyo sirada nabiga qaadashada ay qaateen iyo go'aamadii adkaa oo ay qaadan jireen loona baahan ninka hogaamiyaha noqonaya inuu ku sifoobo waxa kamid ah Abu Bakar radiyallahu anhu iyo xurub ridda dagaaladii dadkii ridoobay nabiga markuu dhintay sallallahu alayhi wasallam arabtii qaar badan oo kamid ah waa gaaloobeen qaabkay marka saxaabada oo la dhaqmeen khaasatan hogaaminta Abu Bakar qaabku oo la dhaqmay wallahi لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم عليه دقال بو إعلامي والله من فرق بين الصلاة والزكاة إذا الزكاة نوديدين وحين الزكاة مركو روا أنا نبي محمد ما نقاد جري أدي ورنت الزكاة ما بحنا إليه معناه إنه عرفت هذه إرداء إنه دب النقدان ويب اللعبين وحي يرى هذه مركا زكاة وين أي بحيان والسخاص بن عضكم بحسان وحي نقاطي والله مركو دقالك إعلامي لأن صحابة قار كمدا وحيران وردت سيد والله دقال ميسا هذا الذي سمرك وحا كمدا والله هذا ديدان حرق دبر أو نبي السين جرين صلى الله عليه وسلم هذا ديدان وحيران كل دقال مايا سيدي بون السمي تلاب أضيق بونا كقادم وحي أحد مركا قعان أضيق أو يشاء أبو بكر أيها رضي الله عنه wuxuu macnaha badbaadiyay waxyaala magaranaysa badan oo islaamka ku soo foolaha ayuu badbaadiyay nabigana sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu u go'aanadka waxyaalaha loo baahan yahay walaalayaal oo mar labaad inuu ku sifoobo qaa'idka raba in uu macnaha ummada hogaamiyo noqdana qaa'id ama hogaamiye naajix ashura waxleelo dadka inuu la tashado nabiga sallallahu alayhi wasallam sifadaas ayuu ku sifaysnaa wuxuu leeyahay Abu Hurayra radiyallahu anhu ma ra'aytu ahadan qattu kana akthara مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أركن أي أبو هريرة رضي الله عنه ولا جاي ما أركن نين كلا معنا قف كلا تشب بدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب تسقابك ولا تشنجري إلهي نحير وشاورهم في الأمر مركه هجاميها وحلاه لو جبها وحكمده ومدة وقتليه إنه طلده كقيب قليو أو قرارات يوقع عمده كل يوم نسق قادنا أما دائرة يرأو معناها كوبان أين قامد قادنين ومدي مصير كذا إيو أين ضد ير أين قادنين أو ومدي لأن لقى قيب قليو قراراتك لنا نشورو أو لويدية طلدا ضدك اللي هو جامينا قابك اللي هو جامين لها وحكمتها مركها قابك وكنا جحايو روح الربعين ومعناه هو جامين نقضه دب مركها ولا صدع أو هوس لا هدي أنه جامين تان أقادنا ولا ليال إن أي معناه وضن هي بس أي معناها خصيصة معناها رير كذا لا إماو أو إهل كذا إياه معناها فاملي كذا هوسي أو لا صار دعم هدي حاس كذا أنا لا تشنين أولاد هذا إياه معناها أما صلانتي أين لا تشنين أضي جدي قابك رير كله هو معمول لها ما حد دعيا بربر بعد دعيا يرهيه إن أي بربران ولا كلا تجو ما دعي مركا هو جامنتن إياه واحد عن كهذا لنا ميل فوق ما هكفكرين روح ربع إنه وضن مدحونا كان نقضه iyo dhinaca bis ha u fikirina adiga daa'irada yar ee adiga aad macna ku hoos imaato ee aad u talisid kula soo hoos dhac waxa la rabaa in qaab wanaagsan oo kalgacayl iyo dhimrin iyo macnaha la tashi in aad macnaha kula tacaamusho sidaas ayaa marka waxa ku noqonaysa aaba wanaagsan oo reerkiisii macna si wanaagsan u maamulo iyo hooyo wanaagsan oo reerkeedina si fiican u maamusho sidaas ayaa marka ku noqonaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ashiru alayya وأنا شوردي أي كمية وحالها كله وحكمية العدالة يعني قاب عدالة إن ضدك كل رقم منك الروين وهو جامين نقضه النبي صلى الله عليه وسلم عدالة دي سوى إهاد معناها عدالة أو جوني أي إهاد واحد بعدي قبر قرشيات إنا واحد دي أي بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مركها حتى يدي أي قعداتي النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحكم بحيي إن قعنت هذا اللي جويه ودينت إلهي iyo xukunka Allah way dad badan oo khaasatan macnaha maadaama gabar qurashiyad ilaan ummadii hore iyo dadkii ba waxay ahaayeen
haddii uu waxado ashariif midka shariifka ama nasabka wanaagsan hadduu waxado wala cafin jiray waxba laga macnaha waxba xukunka lagu muflin jiray maantana adduunka waa ka jirta haddii mid wadiic waxadane horeyta macnaha xukunka looga fulin jiray laakiin nabiga agtiisa arrinka ma yaalo cadaalada nabiga sallallahu alayhi wasallam waana cadaalada la rabo qofku wax hogaaminaya inuu ku macnaha sifo la doonayo weeyaan waxa loo diray war nabiga gabadhan yaa oga shafiica Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu ayaa loo diray waxa lagu yiri Usaama war nabiga adigu ku jecel yahay oo nin u jeclaana abihi aad tahay waxa lagu yiri marka waxa sameeysa ka nabiga gabadhan oga shafiica wuu tagay nabiga arrinka aad iyo aad buu oga xanaaqay in xad xuduud ilaahay kamid laga shafiicayo uu ka xanaaqay wuxuu yiri marka nabiga law anna فاطمة وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبي ويان والله فاطمة أو إنا محمد هدي أي حده قعنت إذا وان قوينا يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واحد سنة مركع عدالة روح الروا إنه مركع واحد قاميو وإن النقطة معنا روح سلاسة كلا عادلة وحيالها كلا الله الروا إنه كسف وقائدك وحكم الخدمات الاجتماعية إنه ضدك معناها أخدمية ومدة وهو قامنا قف أخدمية إن النقطة النبي صلى الله عليه وسلم مركي غار حراء وكجري وملك الجبريل أو ماضي أو معناها الوسود دجي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق الوسود دجي على سورة معناها ملك أيلين بو النبي أو ماضي جبريل وأرجع حي وحوي ماضي حاسكيس خديجة رضي الله عنها أبو النبي ويمت صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي والله خديجة يحير النفط إذا أيان وعف صديمانتا محيتر مركان خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إلهي عديقا مرنكم ما هو جنايته مرنا ما هو جيسيد عديقا نبي محمد محو مركها سيدا أطير خديجة إنك لا تصل الرحمة عديقا قرابة أيضا حرير ذا وتحمل الكلة ضدك ضعفة أهنه أو تبرت درانه معناها واد معناها تاكل إيسا وتكسب المعدوم قفك عن وحبها يسنن سيدا سكالي فقير كان معناها وحباس إيسا أو نن معناها متيد بخيله علماء waxay leeyihiin macnaha waxaan soo marnay oo lagu sifeeyay macnaha qaa'idka waa inuu noqdo ama ruux rabo hogaamiye inuu noqdo qof geesi waa inuu noqdo waxa macruuf wala la yaalo aan ognahay bakhiil geesi ma ahaan qofka bakhiilka ee geesi ma macnaha anaga naftanadu macnaha dhaqankanaga iyo taariikhda Soomaalida waa ku jirta ruuxa bakhiilka waxay macnaha ka aaminsan yihiin inuu yahay ruux fulay weeyaan marka qaa'idka lama rabo inuu ku hogaamiyo inuu ku sifoobo sifatul bukhl waa sifa aad iyo aad u xun weeyaan النبي صلى الله عليه وسلم مركز صفاتها سيادي أدبو أوقفها خديجة رضي الله عنها مركز وحي كنت له إنك لا تصل الرحم قرابة أيضا حريرسا وتكسب مرتضا والسوريسا وتعين على نوائب الحق صفات كاسي أي نبي كسف اسم مركز قائدك وحال الربائن ونقض أخدمية شعب كيسا وحاك لو كمد صفات كلا الربائن وكهج معنا الصفة وقفك الربا إن وحو قاميو الصبات على المبادئ مبادئ ده واحد رميسان تاعي وإن هذا نقطة قف كسجنان كرو أو كتاجن وإن هذا نقطة نبينا صلى الله عليه وسلم صفتها سعي لها أو كسف اسنا وحاك له كمذا صفة الأمانة إن أكسف وقائدك معنا الروح آمن وإن أنقضه معناها أمد وطلده وهاي حوله هذا يا معناها وح الله لا يطلده وقعنته وهاي وإن معناها أنقضه قفل آمن كرو النبي صلى الله عليه وسلم صفتها سعي لها أنتم معناها النبي نقولين يا مركي والنبي نقضي بكجدال وحوا رسولك صلى الله عليه وسلم آمن أيها رسولك صلى الله عليه وسلم مركها مستقية الشخص قفك وإنه نقض قفل الرميسان كرو أو ورك يوحى ودك وشيء جايو قفل الرميسان كرو وإنه نقضه قف وإنه نقضه معناها أمانة وحكم ذا معناها مستقية ذا سي أيا كم ذا وحكى له كم ذا معناها الروح كسبان كرو دتك وهو جامي كالسوني ذا أيا كم ذا وحكى له أو كم ذا ولا ليال الصبر صبرك أيها كمذا أو النبي صلى الله عليه وسلم معناها وكسف إسنا وحن كسر ختمة يا ولا ليال النبي صلى الله عليه وسلم وكسف إسنا لنا معناها لو بهاي قائدك إن وكسفه دتكيسا يا دتكي وهو جامنا يا رسول صلى الله عليه وسلم وحو أبوري جري أو معناها كالسوني ذا أيكو أبوري جري وحيالها أبوري كالسوني ذا أو النبي وسمين جري وحكم ذا النبي صلى الله عليه وسلم مقع يضح حن مثلا وبدل جري مركو وين ما الروح مقع وناكسنين وتا وحو بحنجري مقع وناكسن أيو بحنجري معنا كالسوني ذا أيو أبوري يا قائدك يقفك وحو قامنا وحال روائن ونقض ضدك وهو قامنا الروح كالسوني معناها كدح أبوري كروائن ونقض رسولك صلى الله عليه وسلم وحوده جري لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ورنفتي دي حماتي روح سدا ينضهن
معناها وأرن حن معناها قف نفط هذه يعني الرسائل الإيجابية لون بهاي قفه جاميها إنه درو عي كمتها النبي صلى الله عليه وسلم وحالها تصنايا إنه دتك دير رجلين جري لون بهاي قفك قائد كإنه دتك يسدير رجليو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي قال ليه جري أيها هبينا ذا كمذا أيها وحو صومري مساجد كأسوأ القرآن كآخرين أيوه مركا نبي وود جيست القرآن كيسا يود جيستي عد كيسا آد بأم معنا ننرى اليمن أيها يمنيين تنع علماء وعير هذا وضد معنا القرآن كمركا إلى يومنا هذا معنا عد كودا ونكسية هاي معناها آخرين القرآن كا مركا آد بالنبي معناها أوجه لي آخرنتي أبو موسى رضي الله عنه رسولك صلى الله عليه وسلم واجه مركو بريه وحكير أبو موسى حليته وحن معناها دقيست القرآن كذا آخر نساء لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود معناها عد وناجي داود وكو آخر جري عد كوناكسن وكو آخر جري كتاب كيزي الزبور أيو إلهي كسيي مركز وحر النبي إلهي وهدان أوغان لها لحبرته لك تحبيرا أيام أصي قرحين لها أيو كيري مركز وحن كقاضنا هنا معناها الصفات معناها الرسائل الإيجابية ذاتك قلوب تودا إنه كالسوني جليو أو أي نقدان معناها ضد إيجابيين أو أنا معناها نيجاتيف إهين أو بوزيتيف أيو النبي صلى الله عليه وسلم قفك مركب حلو بهاي هو جاميها إنه نقدا قف أو معناها ضدك وهو جامي قلوب تودا كو أبوري كرو الإيجابية وحل إرادة معنى أهل كذا هذا للسؤال يا أولاد هذه يا فاملي هذا واحد نقطها الروح معناها أبورا يا هاد إيجار ضدك إنا نقدان معناها ضد إيجابيين إيجابي قاعد كناش هذا قال إيجابي النقو ومضى عاد أتلسنا معناها واحد نقطة قف معنا كو أبوري كرو كالسوني هي واحد الإرادة الثقة وحوي ماذا النبي صلى الله عليه وسلم من الله ده أشد عبد القيس مركب وحكيري إن فيك الخصلتين يحبهم الله لبا صفة آيات كصفة لا ضحي أو إله سبحانه وتعالى أجعلي ما هي أحيانا معناها وحو لها الحلم معناها الدلقات هي كاتسينيو دقدق معناها موسى أيان الله نل دقدقين أيوها قصة معناها كو إماتي هذا الكون النبي قال صلى الله عليه وسلم مركا انتهى ولا ليال وقتي معناها وقت ماضي صفات كاسي النبي صلى الله عليه وسلم وكصفة إسنا أو قابك والنبي صلى الله عليه وسلم وحوه جامي أيوة حلوة بهاي قفل بقى الربع إنه معنا وحوه جامي إنه كصفة وبا مل فوقنا وحنا إراها لا آدن وحد كقبل الله وده هوس كقبل الله عنها أولاد هذا يا فاملي هذا هوسه كالعيل النبي صلى الله عليه وسلم وأموجي أصحاب تيسا وقلوب تودنا وكوكس بدي أدينا هذا اللي إماتت معناها جامي ونكسب بعد نقولنا أنا هوس لقبل الله إلى مل كره هدي أدي هكسنيسي وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.